بسم الله الرحمن الرحيم dhegeystayaasha shaqaaya qiimaha halkan waa tiriisa codka ka Soomaaliga Xamdi Axmed Cali la socodsiinay habeenka soo talaadaas 8 barka ilaa 9 iyo barka program xiisalaya caawideena dul yiraahdo maxaa ka cusub wadanka sanad ayaa dhamaan haya wax yar u dhiman yahay 2022 ayaa gabagaba ah 2023 taariikhdan aanu isticmaalno aanu ku tirsanana waa bilowgeeda ayaa soo dhow maxaa cusbaa maxaa se wuxuu jiraan waxyaalihii wararka aad ka maqlayseen ayaan idinla wadaaga hadduu la yidhaahdo dhegaysi wacan
dhegeystayaal waa tiriisa codka barka Soomaaliga Xamdi Ahmed Cali la socodsiin habeen ka soo talaadaas 8 barka ilaa 9 iyo barka dhageysi wacan waxaan idinla wadaagayaa waxoogo yaro arrin aan qayb ka ahaa bari maalmo dhaweyto taasoo codsi la soo gudbinhayo dadka khaasatan Soomaalida ah ee wadankan Australia joogay ilaa ama yimid ilaa 2011 macnaheedu waxa weeye 10 sano meelahaas oo kale dadka hadda wadanka jooga arrintan intaana codka asaga ahaa hay'adda ay soo saarayso aanan idinla wadaagin waxaan idin yar sharxi waxa ay ku saabsan tahay waxay ku saabsan tahay dadka saan sheegay wadanka jooga 10 sano meelahaas ee Soomaalida qoomiyadaha kalena waa la weydiiyay kan programkan af Soomaali ayuu ku baxayay saasayaan raa marka anigana waxay weydiiyeen aan ka caawiyo saadaradeed ayaan marka u rabaa inaan inta aan dadku la wadaagi karo una sharxi karo waxa ay tahay iyo sababta arrinta ka dambaysa inaan macnaheedu idin la wadaago waxaan muhiim ah oo dadku u baahan yihiin inaan ogaano meel hadduu ka jiro nidaam ilaa xad fiican waxaan u malaynayaa hadduu ruux kaga jiro shaki wadankan nidaamkan aan ugu nimid halkan wadankan Australia inuu nidaam ilaa xad fiican yahay wax perfect ama maaragtay wax walba ka dhammaystiran ma jiro laakiin se marka hore ma aanan imaanin waxaan ugu soo qasbay ma jirto haddana intaa ma aanan joognin dad hadda waxaan ka hadlaynaa 10 sano joogay laakiin se dadka qaarkood waxay sii marayaan hadda saan mar horumar idinla idhi dadka 40 sano dad xataa 50 sano hadda joogay wadankan 4 meelood meel rubco qarni dad joogay wadankan Australia oo Soomaali ah ayaa hadda jira oo ay maaragtay ay laga yaabo hadda inay dhageysanayaan programkan marka hadduusan nidaam fiican uusan ahayn uusan ka jirin marka hore ma ayna soo aadneen waxaan ugu soo qasbay ma jiro haddana ma ayna joogneen macnaha dadka u jawaabaya dadka marka qaarkood wax khiyaali ah qalbiga iska gashada ama isu yar sheega oo meel ay jecel yihiin jacaylka u qabaan meel kale inay ku bedelanaynin intaas xataa ehelkooda hadday keeni karaan xataa keeni lahayeen ayaa haddana markii ruux ay ka arkaan ama isagoo ammaanahaya inay hadalla kaleeto oo maaragtay aan munaasabkoodu aan haynin ruuxu ku hadlo oo kale marka waxbayaan dadku maaragtay wax aan jirin yuusan isu sheegin oo asaga naftigiisa uusan aaminsanayn dalkan aad baan u jecelnahay noloshiisa waana meesha aanu ka dooranay adduunka waxaynu ku qasbay isagooda jirin aan haddana weli joogno marka nidaamka asaga ah saa u fiican saa ugu bognay waxaa sababahaya qorshayn la qorsheeyo iyo ka baarandeg dad ay ka baarandegeen wax iska dhacay uun ma aho waa wax la qorsheeyo wey qorshayntaas marka waxaa ka mid aha in la rabo in la ogaado dadka yimid khaasatan dadka inagu aan hadda ku jirnay ugu dambeeyey eesaan sheegahayay 30 sano 40 sano ugu dambeeyey wadanka imaanhayay bal sida ay u arkaan wixii maaragtay caqaba ahayd oo hortimid saan sheegay waa wadan nidaamkiisu ilaa xad fiican yahay oo aan maaragtay aan aad uga helayno laakiinse haddana se waxaa jirta xaqiiqada ay tahay uu ruuxu isdhihi lahaa alelahay haddii intaas iyo intaa laga hagaajin lahaa ama saa iyo saa ayn ahaan lahayn wuu kasii fiicnaan lahaa si marka dadka dambe imaan doona wax loogaga bedelo loona iskuna dayo inii haddii wax looga bedeli karo haddadan la joogo in wax laga bedelo marka waxaan oga jeeda arrintaasi waa waajib ama mas-uuliyad ina saaran weeye haddaad wax u baahan in wax laga bedelo aad aragtay ama aad dareentay inaadan qarsanin oodan la aamusin oodan meelaha un ka sheegine aad maaragtay aad la wadaagto nidaamka waa mas-uuliyad ina saaran weeye anigu saan u arko shaksi kasta oo u baahan yahay maaragtay inuu intaa guto oosan dhihin un markaa la taagan yahay maxaa iigu jira oo kale inuusan dhihin waxyaalo badanoo hadda waxaad arkaysaa dadku nidaamku ina weydiin oo wax laga bedeli kari lahaa ama ay suurtagal tahay in loo dhaqaaqo wax ka bedelidiisii laakiinse haddaynan inagii ina khusaysay aynan la wadaagin oodan qayb aadan xil iska saarin su-aashu marka waxaa weeye see haddii way lagu ogaani
ma aho nidaamka jira si kasta oo u dadaalhayo uu u fiican yahay ma akhrin karo qalbigeenna iskanama qiyaasi karo waxa aanu ka helnay iyo wixii aan aad oga helin saa daraaddeed waxaan u malaynayaa inay tahay waajib ina saaran nidaamkan aanu u nimid aanu ka faa'iidaysano aanu ka helno waxbarasho lacag la-aanah aanu ka helno nabadgelyo lacag la-aanah aanu ka helno dadka qaarkood guryo ay maaragtay laga caawiyo siday guri ay u degaan u heli lahaayeen haddii ayna shaqaynayninna laga caawinhayo qutlyoomkooda iyo maaragtay nolol yoomkooda maxaa la dhahaa waxa noloshooda ah laga caawinhayo waana aad iyo aad bay muhiim u tahay in aanu isku baraarujino mar kastaba aanan ogaano arrimahaasoo kale inayna iska dhicin dad ay sameeyeen innagana loo baahan yahay intaan ka qayb qaadan karno inaan ka qayb qaadanno shaksi kastana uu isweydiiyo nidaamkan aanu ka faa'iidaysanayno insha allahuna ka faa'iidaysan doono ciyaalkeenna iyo ehelkeenna iyo qaraabadeenna iyo jaaliyadeenna guud ee ka faa'iidaysan doonto bal adugu maxaad ku biirisay oo wanaaga in la isweydiiyo inaadan ka soo qaadinuun inuu yahay wax iska jiro una iska dhacayo oo maaragtay aan u baahnayn in laga qayb qaato marka arrintaas ayaan idinla wadaagi dhegaysta wacan iyo waxa ay idin weydiinayaan iyo sida dadku ay rabaan ayadana ay uga qayb qaadan karaan waana saan sheegay kuma celin karo in dadku muhiim weeye arrintaa haddaad tahay dadka ay khusayso 10 sano oo waddanka jooga inaad telefoonada meesha ku qoran iyo intaad wacdo la xidhiidho aad tiraahdo sidanaan maaragtay adoon ka badbadinaynin oon calaacalaynin oon waxaynaynin wixii aad sa adigu u arkaysay inuu wax fiican ahaa wixii sa adigu u arkaysay aad u arki jiray aad isdhihi lahayd in wax laga bedelo oo sidan haddii laga dhigi lahaa ama sidan hadduusan ahaan lahayn way fiicnaan lahayd mana aho inaad adiga eed sheeganaysa ama calaacalayso ama waxa la ii sameeya aad leedahay waxaa weeye sidii nidaamkii adigaba aad ka faa'iidaysatay dadka kaleete ayagana si ay uga faa'iidaystaan nidaamkuna uu u ogaado oo wuxuu uu ka bedeli karo uu markaasi uga bedelo miyaa tahay qaxooti ama ku timid Australia bini'aadanimo kadib 2011 ma rabtaa inaad nala wadaagto waxaad soo martay la kulantay si aad u bilowdo nolol cusub waddanka Australia haddaad tidhi haa waxaan kaa codsanaynaa inaad buuxiso su'aalo ku saabsan noloshaadii waxaa in kugu qaadan su'aaluhu 15 daqiiqo su'aaluhu waa af Soomaali dhammaantoodna waa mid uun ka dooro su'aalo ah su'aaluhu kuma saabsano noloshaadii waddanka aad ka timid warkuna annaga unbuu nagu ekaan looma baahno in aad magacaaga ama ciwaanadaada sheegto su'aalaha waxaa soo diyaariyey hay-adda Scotland ee cilmi baadhidda Scotland Foundation Research Institute waa hay-ad madax bannaan oo rabta inay adkayso xidhiidhka bulshada Australia muujisana dadaalka bulshada Australia dhaqan kasta oo ay ka soo jeedaanba warka su'aalahan laga helo waxaa loo isticmaali si loo wanaajiyo dejinta iyo adeegga la qabsashada dadka qaxootinimada ama bini'aadanimada ku soo gali doona waddanka aad baan u jecelnahay inaad su'aalahan ka jawaabto wixii dheeraad ah oon ka helno waxay dadku soo mareen waxaa lagu wanaajin nidaamka nolosha iyo isdhexgalka dadka qaxootinimada ama bini'aadanimada ku soo galay mahadsanid sida aad marka ka dhageysanayseen hay-addan waxaa la yihahdaa Scotland Foundation ayaa la dhahaa qaybteeda weliba cilmi baadhidda ayaa adeegan u qabanaysa waddankan oo dabcan dowladda ayaa Australia ayaa adeegsanaysa waana arrintan sheegay muhiima runtii arrimaha aad dareemayso ah in adeegga iyo maaragtay waxyaalaha dadka loo sameeyo wax iska dhaca ma aho waana wax mar kastaba loo baahan yahay lagu sameeyo macnaha adjustment dadkuna baahidoodu isku mid ma aho
mana aho in yan loo qaadanin in macnaha dhibaato ay jirto oo dadku maaragtay laleeyahay dadkii aan hadda su-aalahan markii laga jawaabo dadkii ka horreeyey inay dhibaato la kulmeen lamayna kulmin dhibaato intiisa badan wanaag aan ka ahayn waddanka kala kulmay ma jirno laakiin mar kasta waxaa la doonayaa in nidaamka laga sii wanaajiyo marka ka fiiri dhinaca wanaagsan oo in nidaam u baahan in wax laga wanaajiyo laga improvement lagu sameeyo mar kastaba ayaa kaa codsanaya marka fikradaada si maskax furan aha inaad uga qayb qaadato ood siiso waa arrin muhiim ah weeye oo maaragtay tusaysa maaragtay qaybtaada aad ka qayb qaadanayso wanaagga waddankan aanu kala kulannay marka taas marka midaasay ahayd saan sheegay hay-addan waxaa la yidhaahdaa scalan foundation ayaa la dhahaa telefoonkaada waxaan u malaynayaa websiteka haddaad raadiso scalan wuxuu xarfuhu ay ka kooban yihiin scalan foundation ayaa la dhahaa scalan foundation waxaa weeye SCALON scalan foundation waa hay-ad ah cilmi baarid ah ama waxa la dhaho xataa philanthropic waxa la dhaho kalete qayba waxay leeyihiin dadka maaragtay caawiya programma hadday jiraan khaasatan kuwa ayna dowladdu aynan caawinaynin marka waxyaalaha ay samaynayaan waxaa ka mid a marka researchin iyo cilmi baaridan oo ay rabaan dadka wixii ay la kulmeen wixii markaasi ay u fiiriyaan wixii laga bedeli karo oo wanaajin oo lagu samayn karo khaasatan degitaanka waddanka mana aho soomaalidana khaas kuma qaybta hadda soomaaliga unba ay un ahayd qaybta hadda dhegeysanayseen mooyaane waxaa ku jirta qoomiyado badan ayaa ku jira iyadana oo carabi buu ku baxay xataa chinese buu ku baxay luqado kaleeta ayaa isagana ku jira marka hay-addaas weeye scalan weye macnaha magaceeda foundation SCANLON weye haddaan u ku sii jiro arrintaasi iyo degaanka iyo imaatinka waddanka la yimid waxaan rabaa dhegeystayaal inaan idinla wadaago arrimo mararka qaarkood aad isleedahay dadku maadaama inan show wax miyaan lagu baraarujinin amaba aynan hoos iyagu u fiirinin ama uu iska noqotay waxa la dhaho af ingiriiska lagu dhaho taken for granted macnaha isku hadlayn waxaan ani marka qaarkood qalbiga kusoo dhaca markii la dhaho wax ereygan hadda anigu erey u dhigmo oo soomaali ah ma garanayo waxa la dhaho take it for granted inaad wax isku hadlayn xataa ma aho ma malaynayo inuu ku habboon yahay ereyga ku habboon isku hadlayn inuu yahay maamaha soomaaliyeed waxaa jirta dhahaysaa lahaa dameer isku hadleen bay hooyadeed dabada uga nuugtaa dameerta yarta ee dhasha ahaa dameeruhu waxaa la ogyihiin inay yihiin way haraati baran yihiin waxa la wixiisaa xagga dambe oga soo dhawaada baal haraati kusii deynayaan laakiinse ilmaha ay dhashay xagga dambe intuu ka yimaado bay dabada iyo ka nuugtaa xagga dambe naaska kasoo geli macnaha ka nuugi mana haraatinayso ilmihii yaraana waa ogyahay inayna haraatin isku hadlayn marka taasi waa isku hadlayn weeye oo macnaheedu tahay inuusan dhibkaasoo gaadhaynin marka taking for granted isku hadlayn laguma fasiri karo si toos ah kalsoonina iyadana ma aho oo maaragtay arrintaas isku hadlaynta ayay iyadana ka agadhowdaysaan u arko taken for granted waxaa sida keliga ereyga aan soomaaliga ahaan ugu fasiri karo ama erey ma aheysaan haddaan fasiro waxaa weeye wax aad u aragto inuu mar kastaba kuu joogo adiga oon u shaqaynin adiga oon u dadaalin adiga oon kasbanin uu kuu joogo waxaan mararka qaarkood saasoo kale oola dhaqanaa ama la sameeyaa ciyaalka hooyadood khaasatan hooyadood ciyaalka ayaa hooyadood waxay ula dhaqmaan maxay ola macaamilaan waxa sidii take it for granted macnaheedu ilmuhu inuu hooyadii ay cuntada siiso wuu iska rabaa wuu iska sugi ma uu macnaha uma uu baahno uma malaynhayo inuu u baahan yahay inuu kasbado ama uu maaragtay wax qabto ama maaragtay uu baryo wuxuu way iska siin waad arkaysaa marar badan weliba hooyooyinku iyadoo ilmihii maaragtay
la daba ordaysa ilmihii oo diidan hadda cuntada yay maaragtay ku dhibi oo iyadii daba orday cun dhihi oo ku rafaadi waxaadna markaas mar qaar waxaas leedahay ilmahan hadduu gaajo hayso asagaaba cuni lahaa maxaa marka ilmuhusana mararka qaarkood ilmuhu isagoo raba isagoo cuni kara xataa ayuusan uusan maaragtay uusan cuntadii qaadanaynin waxaa ka mid a marka inuu yahay take it for granted macnaha in uu og yahay qalbigiisa ku jirto inay hooyadu la daba ordi oo maaragtay ay ilaa la waxaynayso haddii uusan ilmuhu saa u baranin uusan kalsoonidaas ama taking for granted ka haddayna jirin waxaa laga u badantay inuu markaaba kusoo boodi lahaa maaragtay canaha marka waxaan oga jeedaa hadda sheekada intaas u dheeraynayaa ma aho inaanu noqono waxaasoo kale sidii take it for granted oo kale waddankan nabadgelyaanu ku haysanaa khaasatan markii loo fiiriyo adduunka kale iyo ama khaasatan waddankii iyo meelihii aanu ka nimid waxaanu ku haysanaa waxbarasho aad u qiimo badan oo haddana lacag la-aan ah markii khaasatan loo fiiriyo waddamadii aanu ka nimid iyo meesha ehelkeennii oo fara badan qaraabadeennii kuwa qaarkood kuwa dad inoogu dhow xataa aminkan ay joogaan waxaan ku haysanaa maaragtay danayn caafimaad oo kuwa adduunka ugu sarreeya ah oo laba weliba ka kooban ah in dhakhtarka kuu sheegahaya xanuunka ku haya waxa uu yahay waan ognahay inaad dhakhtar u tagto oo aad u sheegto meesha ku xanuunaysa iyo hadday wax jiraan oo markaa dee intuu ku dhegaysto uu ku dhaho daawada noocaas iyo noocaasaad u baahan tahay waa mid weeye lacag bay ku koosgaraynaysaa lacag bay yay maaragtay yaa lagaa rabaa haddana daawadii lagu yidhi daawadaasaad u baahan tahay iyadana inaad soo gadato iyadana waa lacag kaleeto wey baan ognahay lacag aad u yar aad u yar dadka qaarkood waxaa laga yaba xataa inaysaa isu weydiino ina garanaynin daawooyinka qaarkood sanad kasta dowladda dhexe ee Australia waxay ku bixisaa daawooyinka ugu dambeeya ee ugu fiican si kastoy qaali u yihiin inay raadiso markaasay dowladdu intay dhiil la gasho hay-adahaas ayaa waxay leedahay dad shacabkanaga ayaan daawadan u siinaynaa macnaha amaan u fasaxaynaa ama aanu ku daraynaa listiga daawooyinka ay dadku gadan karaan saa daraaddeed waxaan maaragtay intaas oo daawo tiradeedu inta ay gaadhayso ayaa laydinka isticmaali inaad qiimaheeda yaraysaan inta aad yarayn kartaan annaguna markaadeedna aan saas idinka gadanno oo dowladda ay idinka gadato dadkuna in yar ay bixiyaan markaas waxaa mararka qaarkood dhacda daawo runtii daawo ahaanteeda haddii la dhaho inaad la soo gado suuqa mado ka soo gado dhowr kun mararka qaarkood 10 kun ay gaadhayso yaa waxaa laga yaabaa shaqsigii inuu mararka qaarkood lacag la-aan lagu siiyo ama uu bixiyo wax u dhigmo oo kale $10 iyo $5 mararka qaarkood ka yar $5 dadka hadduusan ruuxu shaqaynaynin waxaa la dhaha health cardka hadduu haysto waxay u badan tahay $10 wax ka yar inuu bixiyo hadduu ruuxu shaqaynhayana in la dhaho wax yaroo la yaro badiyo oo $20 iyo $30 iyo daawo qiimaha dowladda uu ugu fadhiyo uu yahay dhowr kun laga yaabo xataa 10 kun inuu gaadho marka arrinta xaddaa dhan daawada caafimaadka noocaas ah ayaanu helnaa si ama lacag la-aan aha ama lacag la-aan ba aan ka fogeyn ayaanu helnaa arrinta marka noocaas aha inaanu iskaga qaadanno uun inay iska dhacdo oo wax diyaariyey oo isku soo dubiriday uusan jirin inuu innagana dowr inoo yaallo inaanu ka qayb qaadanno inaan abaal u qabno inaan macnaha nidhaahno anugu maxaan qaban karaa marka qaarkood aan isweydiiyaa dadkeennu abow ma jiraa ama imise weeye inta dhahda inay un dhahaan maxaan anugu u baahnahay dowladda ama caafimaad ha noqdo ama ha noqoto waxbarasho ama ha noqoto nabadgelyada ama ha noqoto shaqada iyo wixii la mid ahaba maxaan anugu u baahanahay mooyaane anugu maxaan qaban karaa oo anugu maxaan ku caawin karaa nidaamkan asaga aha waxaasoo dhan noo samaynhaya waxaan u malaynaya dadka arrintaa dhaha inay aad iyo aad u yar yihiin waxayna macno weyn sii samaynaysaa oo u baahannahay inaanu isweydiinno marka aanu inagu nahay dad ka yimid
meelo kale waddan kale ka yimid oo dadka aanu u nimid inan intiisa badan isku dhaqan ahayn, isku meel ayna ka soo jeedin, isku qoomiyad, isku macnaha jinsi aanan ahayn, isku jinsi aanan ahayn, isku dhaqan aanan ahayn, isku diin xataa aanan ahayn. markaasaa intaasoo adeega baanu helaynaa, xataa inan wixii ugu yaraa isweydiinin xataa maxaa uu see u yimaadaa adeegan, see u dhacaa, anigu se maxaan ka qayb qaadan karaayo maxaan ku tari karaa inaan la isweydiinin. bal marka qaarkood inay ka sii darto arrintu maxaan ku tari karaa inayna noqonine inay aad u soo baxdo arrintii hadda aan ka hadlayay ee take it for granted kii oo kale, isku hadlayn kheyr caadi ah oo ruuxii isagoon weydiininba xataa uu dhahayo markuu hadduu waayo ka soo qaada nabadgelyadii wax yar hadduu yaro waayo inuu ruuxii aad ka yaabo inuu dagaal qaadaba oo kaleba dagaalamo say nabadgelyadii aan u waahaya, hadday caafimaadkiisii ama dhakhtarka ama daawada hadduu wax yaro waayo ama ambulansiga la dalbado ka soo qaado ay ka yara daahdo in uu dagaal qaado oo kale, seen iga soo daahaya, seebuu sidan u dhacaysaa. macnaha waa arrin runtii aad marka qaarkood isdhahayso dadka qaarkood noocii bini'aadamnimadiiba mashow ka baxnayba, inuu ruuxu ilaa xaddaasi uu wax uusan xataa wax uu ku taray uusan jirin, qayb uu ka geystay uusan jirin, haddana inuu ilaa inay mar alla markuu u baahdo ay diyaarka u tahay inuu isku qanciyo, haddii sidii uu rabay u noqon weydana uu eed sheegto. waa arrin runtii aad iyo aad khatar u ah weeye, oo dadka kedin karta, oo maaragtay ina kedin karta. waanan u arkaa aniga waxaan arrintan hadda idinla wadaagahayo inaan kedintaasi aan qarka u taagannahay haddaynan kuwa jirinba, in nidaam wax jira faa'iido badan aan ku qabno, noocyo badan leh, aan iska daa qayb aan ka qaadanno oo innaga isdhahno war maxaan nidaamkan ka wanaajin karnaa, war nidaamkan maxaan ku dari karnaa, war qaybteenni ma ka qaadannaa, ma ku darnaa, iyo xaggeen ka joognaa in la dhaha iska joojiye. markay dadku ay ka hadlaan keli ah inay noqoto uun markii sidii ay rabeen si aan ahayn ay ka helaan, inay ayagoo eed sheeganhayo oo calaacalahaya ay maaragtay ay ka hadlaan oo ay ka sheegaan. arrimaha tan igu abuurtay waxaa ka mid ah oo aadka kuma koobno laakiinse qayb weyn ka qaadata arrimaha guryaha oo kale, guryaha dowladda oo dad badan oo communitygeenna aha ay degan yihiin. waxaan mararka qaarkood isdhahaa dadka qaarkood show ismaba weydiiyaan inta dadweynaha gobolkan Victoria degan guryaha dowladda inta ka faa'iidaysata, iyo guryaha dowladdu ay ugu tala gashay dadka aan guri ayagu kiraysan karin ama aan gadan karin ama aan dhisan karin imsay tiroodu tahay. mar aan fiiriyey tirada guryaha dowladdu ay leedahay guri ahaanba ama hal qol ha noqdo ama laba qol ha noqdo ama 5 qol ama 6 qol ha noqdee, guud ahaan meelaha waxaan u malayn inuu 60,000 ka soo qaad 70,000 meelahaas kale 70,000 oo guri. waxaa marmar qaarkood la dhahaa ay ku arkaysaa meelo ay ku qorayso dowladda gobolka Victoria inagu deganay magaalada Melbourne hadda weliba aan joogno. dowladda Victoria waxaa weeye landlordka ugu weyn gobolka Victoria. macnaheedu waxaa weeye qola landlord waxaa la yidhahdaa ruuxa guryaha leh, guriga dad markaad kiraysanayso shakhsiga ama ruuxa ama hay-adda iska leh ee aad kirada siiso ayaa waxaa la dhahaa landlord, erey ingiriis oo hore wey, laakiin ruuxa guriga iska leh asaga weeyoon. marka dowladda Victoria ayaa ah landlordka ugu dhul badan guryo ahaan, macnaha leh guryo uu dadka kireeyo, macnaheedu laga kireeyo dadka, laakiinse waa loo raqiisiyaa, laakiinse sharcigu wuxuu ka fiiriyaa un inay sidii ruux guri laha oo kale ay yihiin oo markaa dadku ay kira bixiyaan. dowladda gobolka Victoria ayaa ah hay-adda ama shakhsi haddii la dhaho guryaha ugu badan laga degan yahay, macnaheedu
oo ilaa saan sheegay ka soo qaata 70,000 oo guri inay yihiin. waxaa kaloo iyadana jirta in markii marar badanna la sheego dad inay yihiin tiradoodu ay gaadhayso 100,000 oo macnaha weliba shakhsi lagama hadlayo. waxaa laga hadlayaa applicationka dadku waxaa laga hal shakhsi inuu yahay hal qol sugahaya, kuwana qaarkood 2 ruux inay yihiin oo masqaba ama qaraabo si kale u aha iyo dad qoys ah. isku dar markaa inta application ama inta diiwaan ee la sugahayo inay ka badan yihiin 100,000 oo qoys haddaanu dhahno ama hal shakhsi ha noqda ama qoys ciyaali ka kooban ha noqdaane 100,000 ayaa waxay sugahayaan si ay guryahan dowladda ay leedahay ee dadka awoodin inay guri kiraystaan loogu talagalay inay fursad loo siiyo inay degaan oo ay ka faa'iidaystaan. 100,000 oo ruux oo ama application ama qoys ayaa sugaysa. guryuhuna waxaan sheegnay inay yihiin 70,000 ay dowladdu ay leedahay. su-aasha saddexaad marka u baahan in la su'aalayna waxay tahay dadweynaha gobolkan Victoria waa imisa, si aan halka uga ogaano imisa qoys ama adu qoys aan ka soo qaadayna hadduu xataa ruuxu kaligii yahay qoys baan ka soo qaadayna. imisa qoys ayaa degan guryaha dowladda gobolkan Victoria? waxaan leeyahay 5 milyan weeye dadweynaha gobolkan Victoria. 5 milyan weeye inta qoys ay yihiin hadda ma sii garan, laakiin 5 milyan tira yar ma oo tira aad u fara badan weeye markii la barbar dhigo loo fiiriyo 70,000 oo guri. waa aad bay u kala fog yihiin. marka waxaa meesha kaaga soo baxaysa gobolka Victoria kaliya haddaanu fiirino oo Australia guud aan fiirinin dadka guryaha dowladda degan amaba degi karaba inay aad iyo aad u yar yihiin. macnaheedu guryaha dowladdu ay ugu talagashay inay dadku aan awoodin inay guri kiraystaan si kastaba ha noqotee inay aad iyo aad u yar yihiin markii tirada populationka loo fiiriyo. taa marka maxaa kaaga soo baxaysa dadka degan ha noqdaan ama Soomaali ha noqdaan ama Afrikaan kale ha noqdaan ama qoomiyadaha kale ha noqdaan dadka guryaha dowladda degan in wax aad u yar oo dadweynaha Victoria oo dhan ee 5 milyan ah ka dhaxeeya ay wada leeyihiin inay dad aad u yar ka faa'iidaystaan fursadaasi. waan ku celin in dad aad u yar ay ka faa'iidaystaan oy isticmaalaan si kastaba sababtu ha noqotee dad wax ka dhaxeeya dadweynaha Victoria oo dhan. si kale haddii loo fiiriyana Australia oo dhan baa la dhihi kara, laakiin gobolladu way kala duwan yihiin oo gobolkii akaba dhul wadan gaar baa loo maamulaa. guud ahaan wadanka Australia baa wada leh, laakiin xoog hadda waxaan saarnaa gobolka Victoria wax si markii loo fiiriyo aad u yar laakiin ka dhaxeeya dadweynaha Victoria oo dhan ay dad aad u yar ka faa'iidaystaan oy isticmaalaan ama dabcan waxaan ka soo qaadan inay u baahan yihiin. marka taas waxaa ka dhalanaysa marka dadka degan bal inay marka ugu horeysa ogaadaan abaalna ku qabaan wax dadko dhan ka dhaxeeya 5 milyan ka dhaxeeya ama eligible ha u ahaadaan ama yeenu ahaanin, laakiin isku duubka u horeeya waxa weeye wax ka dhaxeeya weeye wax Victoriaanka oo dhan ay leeyihiin weeyo xaq ay u leeyihiin inay degaan. dadkaas wax ka dhaxeeya inay dadka aadka u yar hadday degan yihiin inay horta marka ugu horeysa inuu u baahan yahay iyo inuu u baahanayn iyo inuu guri karaysan karo iyo inuu san karaysan balta horta dambayso marka koowaad in abaal ku qabto in wax dadkii Victoria oo dhan ka dhaxeeya adiga oo khaas kugu yahay oo adiga degan tahay. taas marka waxay sababaysaa inuu ruuxii uu hadduu xataa eed sheeganayo eed sheegasa ku habboon oo munaasab ku ahaa inuu eed sheegto. waxaad mar badan arkaysaa dad arrintaasoo dhanba ay kaga jirto mugdi oo sida ay u eed sheeganayaan iyo sida ay u hadlahayaan iyo sida ay wax u codsanayaan ay arrintii hadda aan sheegayo take it for granted oo kale. sida ilmaha yar ee mataqaanaa hooyadii markuu iska rajaynaya inay xataa isagoon gaajo badan qabanin inay cuntadii u diyaariso siiso, inay caanaha siiso, inay seexiso. meesha waxaa laga ilmaha yar kuwa yararka weliba guriga fadhiga meel asagoo iska jooga buu yuu maaragtay yuu iska fadhiidi ilaa hurdo qabanayso. markaas marka qaarkood way ooyahayaan, wuxuu rabaa inuu intii hooyadii ay garato qaado meeshii sariirta la seexanaya ay seexiso, amaba aday tahay ku socon kara ay tiraahdo hooyo
orod seexo sariirtaadii tag sariirtaada intii loo diyaariyo weliba iyo saasuu iska rajeynaya waa take it for granted aan ka hadlayo kaleeto wey waxaa soo xusuusay arrintan ciyaalka iyo waalidka ku saabsan sheeka waxaa jirta soomaalidu waxyaalo badan oo mahmaaha abay sheegaan oo aan laga yaabo asal inaynan arrintu dhicin laakiinse loogu talagalay dadka in lagu tababaro oo maaragtay loo isticmaalo mahmaah iyo maaragtay mithaal ahaan si dadku ay u fahmaan waxa oo cilmi barid baa ka dambeeya sheekada waxay tahay nin baa waxaa la yidhi islaan isla soo baxeen ama rabay inuu guursado markaasuu yidhi hala ii meheriyo markii islaantii loo meheriyey ayaa waxaa la yidhi oo ay markaa la kala tegahayey ayuu wuxuu yidhi baa layidhi akhyaaray waxaan idinka codsanayaa inaad alla noo baridaan inuusan ilaahayna siinin ilaahay inaad nooga baridaan inuusan na siinin gardarra ku ooygii gardarra ku ooydii inuusan allana siinin hadda ma saarayno focuska ama maaragtay diiradda ma saarayno inuu ninkani khaldanaa iyo inuu khaldan yahay macnaha inuu leeyahay ciyaal inuusan ilaahayna siin ilaahay noo barya laakiinse midda aan diiradda saarana waxay tahay arrinta uu cabarahaya ee ah gardarra ku ooy inay yihiin macnaha ilmuhu asaga oo khaldan gardarradu waxa weye waa khaldan yahay asaga oo khaldan ayuu haddana isagii ooyahayaa waxayna asaas ku tahay taking for granted oo kale haddaan sheegahayay isagoo cuntadii meesha taallo yuusan cuntadii raadsan karo usan cunin ama hala isiya dhihin ya haddana laga yaaba inuu ooyo markii le maxaad u ooysaana cunto maxaa liisii waayo dho inuu u baahdo in sariirta la geeyo la seexiyo haddii la maxaad u seexan le maxaa lii seexin waayo wax uusan asagu xaq uusan u lahayn oo maaragtay uga bartay hooyadii iyo waalidkii inay siiyaan ayuu u ooyaya marka wuxuu yidhi jeedan hadda uga jeeday waxaa weye arrintan xusuusay ilaahay nooga barya inuusan ilaahayna siinin gardarra ku ooygii macnaheedu wixii ciyaalka weeye asagoo asagu khaldan haddana ooyahayey marka arrinta waxaan u keenaya waxay tahay runtii waxaan arkaa oon mar kastaba arkaa shacabkeennii inaanu gardarra ku ooy badan dhacdo oo caado inoo noqotay oo wax saan sheegay gobolkan dadkan dadweynaha victoria ka dhexeeya haddana aanu nahay innagii kuwa soo galooti ah oo dalkan ku cusub oo waxa aanu ku qaybka aanu ka geysanay ean ku tarnay uu iska yaryahay markii loo fiiriyo kuwayaalaha kale haddana inaan innagii maaragtay aan ooyeyno oonu calaacalayno mararka qaarkood waxyaalaha aad ka maqli weliba khaasatan berigii lockdownka runtii wax aad iyo aad looga sariigta buu ahaa aad iyo aad looga sariigto oo dad weliba xataa luuqadda say ugu hadlahayaan ay cajab gelinayso ood u aragto aas dhahayso dadkani nidaamka iyo waxa jira inay dhegaystaan maqlaan arkaan akhriyaan bay ahayd ogaadeen oo maxay ka mid tahay ruux shaksi dhan baa weliba dad dhallinyaro ah oo caafimaad qaba oo waxba qabin yaa intuu miidiyaha soo hor istaago ama waco ama meel soo istaago ayaa wuxuu leeyahay guri waxaanu degannahay overcrowded ah oo anagoo intaasoo ilmood ah degannaha ama intaasoo dhan bay degan yihiin haddii si dabiici ah oo caadi ah daacad ah loo hadlo dadkan victoriyaanka ayay ku dhegaysanaya khaasatan markay ku arkaan ruux dhalinyaro ah tahay caafimaad qaba si smart u hadlahaya waxayba su-aasha u horeysay isa su-aali waxaa weeye hadday ay ku su-aali karaan aynan in lala yaabo ama maaragtay dad ogtay dadkan si maaragtay si baynan hadalka toos aynan u cabirin hoos way dhahayaan waxyaala badan bay isweydiinayaan oo iyaga saaxiibadooda dhahayaan muxuu ruuxan saa u samaynayaa laakiin sida inay toos u dhahaan way adag tahay lasdhihiba oo maxaa adiga ruux caafimaad qabaabaad u eg tahay oo ruux aan waxba qabin oo hataa dalkan aan ku cusbayn oo luuqadiisu fiican tahay maxaa aad guryahan dadka masaakiinta loogu talagalay aad u degan tahay horta marka u horeysa ku dhihiba haddiise aabad degan tahay arrin baana idinla wadaagi muhiim ah oo dad badan aan ogahay inay wixii ku sababay ay tahay oo markii dambena aan ilownay oo runtii dhibaato ah sababtoo wax baan si inteeni badan marka dadkii hore weliba jiilkii hore dadkii hadda 20 sano ka hor oo kaleetiyo 30 sano iyo meelahaas oo kale waddankan yimid waxaa jiray
cad oon kaga bedelayn qoomiyadaha kale oon la mid ahayn dadkii kale waa idinla wadaagi doonaa wixii oo dhan baa intii la iska iloobay ayaa marka hadda focuska isku soo jeedinayna innagii oo markaasuu ruuxii wuxuu leeyahay isagoo calacalahayo oo saa u dhahadlayo oo meeshan bac tumanaya la arkaya su-aasha caadiga dadku is-su-aalana marka waxay tahay ruux waxaad u eg tahay baa caafimaad qaba ruux fid ah baad u eg tahay shaqaysan kara lagaba yaaba xataa inaad leedahay xataa waan shaqaystaa waan shaqeeyaa maxaaba guryahan dadka masaakiinta loogu dejiyey ee loogu talagalay aad u degan tahay miyaadsan ogeyn inaad guri karaysan karto oo maarata hadduu guriga cidhiiri kugu yahay haddii dantii loogu talagalay waad ka gaadhay maaba guri kara aad raadsatid oo maarata aad degtid amaba aad qaadatid waxaa kaloo la ogyahay arrinta aan ka hadli doonayna calaaqaad la leedahay in ay guri ruuxu inuu qaato hadduu shaqeeyo inay sahlan tahay waddankan Australia inaad wada gadato ma sahlano oo lacagtiisii hal mar lama bixin karo laakiin ruuxu guri inuu qaato aad ayay u sahlan tahay hadduu ruuxu waliba uu shaqeeyo dadaalana ilaa xad u dadaalo marka maxaad u samayn lahayd baa lagu dhihi marka waxaan uga jeedaa arrinta sababta waan ogahay midab badan oo markii hore aan ku bilownay laakiin tii baan hadda intaan ilownay ayaan inagii marka isfashirayna oo focuska isku soo saarayna oo marka inay su'aalaha leena su'aalo oo leena dhaho maxaa socda maxaa jira haddana arrintiina maba haddaan sharxi lahayn xataa maba ogin bade dadka hadda hadlahaya furka tuurahaya arrinta lamama socdaanba oo waxay ahayd sida saxda ahaa inuu ruuxu dantiisa waxaa layidhi soomaalidu maamaha soomaalida waxaa jirta dhahaysa daqsi dantiibuu wasaq ugu jira daqsi dantiibuu qurun ugu jira kale waxna aska lahaa daqsi danti iyo qurun ugu jira daqsiga qurunka ku dhex jira meelaha wasaqda badan ku dhex jira dantii inbuu ugu jiraa macnaha meesha aanu degannahay iyo ceebtay wadato iyo waxay wadato iyo say tahay dan aan inaga wadateen aha oo saan sheegana dib baan idinka sharxi idinla wadaagi doonaa ayaanu u joognaa de marka inaad arrintii publicise garayso oo focuska isku soo jeediso oo aad maaragtay wax dadkoo dhanba ka dhexeeyo adigii isticmaalayso ood haysato adigiina umaba ekid ruux xataa u baahanba si markii loo fiiriyo inaad marka adiga isku soo jeediso waa arrin runtii aad iyo aad u leh weeye dhibaatadeeda u wadata weeye haddaba aan idinla wadaago arrinta dad badan ay marigii hore isticmaalhayeen ee u sababtay in guryahan la dego waxay ahayd maadaamaan ognahay diinkeenna in waxa la dhaho ribada ama interestiga lagu dhaho diinkeenna uusan ogolayn in aan ruuxii marka uu si kasta oo lacag mushaar shaqo fiican u haysto mushaar fiican u qaato ay dadku aaminsanayeen anigana ka mid aha dad badanna aaminsan yihiin in aynan diinku u ogolayn inuu qaato waxa la dhaho mortgageka oo uu maaragtay dhaho gurigii yaan in yar u gadan maadaamadu lacagtii hal mar bixinayninna qoladii dhulka iska lahayd ee guriga iska lahayd waxay ku saaranaysaa ribay ku saaranaysaa waxay ku leeyihin intaasoo kun baa kugu dhiman lacagtii marka sanadkii la arkaba bishii la arkaba waan kugu qordhisanaynaa in baan ku saaranaynaa si marka aan maaragtay lacagtanadu aan lacag kaagaga samayno adiga inta aad lacagta nooga dhammaystirayso maadaama aynan arrintaa marka aanu diinkeena dartii aanu u samayn karin midka kale inoo furnaa wuxuu ahaa inaan kira degno taasoo ay tahay la dhaho markii la doonayo inay guri la qaato ama guri la gato ayaa waxaa la dhahaa inay rentigu inay tahay dead money lacag kaa dhimanaysa macnaha waxayna u tahay de ruux baa kaa haddaad si yar ku meel gaadha ayuu ruuxu kirada maaragtay ku bixin karaa ayuu ku bixin karaa oo maaragtay uu ilaa xad maaragtay laakiin hadday noqoto weligay sidanaan u joogi oo saan baan ku jiraya waa arrin aad u adag weeye oo maaragtay aan runtii ku ogolaanaynin in lacag badan aad khasaarayso oo lacagtaadi inay rentigaaga maaragtay dead money inay iska ahaato oo kaleete marka dadkii taas ayagoo ka cararahaya ayaa waxaa la yidhi doorka kale ee noo furan wuxuu yahay si aan ugu meel gaadhno inaanu guryahan dowladda aanu maaragtay iska degno aan ku urursanno ama ha noqoto inaad lacagtaa urursato markaa guri aad gadataba ama haddii kale dadkaagii iyo aad iskaga taageerto oo ama waddankii iyo aad ku samaysato saa loo sameeyay ahayd laakiin arrintii intii la iloobay ayaa dad kale oo wixii dhanba la soconin sheekadii aan loo sheegin wixii la socotinin baa yimid aan ogeyn waxan inuu yahay wax dadka dhan ka dhexeeya oo aad u yar oo inagoo aanu khaas la noqonnay dad macnahaan inagu ku jirno inaga keligaan baa degan malihin aan khaas la nahay oo aadan arkaynin dad kaleeto oo sida inaga aan samaynayn oo kaleete runtii markaan waxba iska qarmayno arrintan oo kalena ani ingiriis kuma dhaho af ingiriis kuma dhaho soomaali baan ku dhahayaa
waxyaala waxaa weeye aad iyo aad aan oga siriigtay bay ahayd markaan mararka qaarkood arki jiray berigii weliba lockdownka uu jiray north melbourne iyo flemington aad iyo aad looga xiishooda bay ahayd waxyaalihii dhacahayey iyo hadaladii dhacahayey iyo sidii maaragtay inaanu xaq waxan u leenahay wax saan sheegay dadka ka dhexeeya aan ina haba yaraatay dadkii ayna dareensaneenba inuu yahay waxani wax dadka ka dhexeeya oo adigii maaragtay aad ama laga soo qaadahaya xataaba dadka Victoria degan intooda badan guryo dowladeed inay degan yihiin markaas deedna ruuxu marka xaq buu u yeelan karaa waa macnaha xaq macquul weeye in ruuxu marka u maleeyo in asaga gurigiisu hadduu xaalad ku sugan yahay inuusan la dal yeerin oo kale maxaa la dayactirin in uu qolku ay ku yar yihiin hadduu marka asaga ku dhacdo inuu marka u arko dadkan kaleete sida anagu aan ku noolay ma ku noolo maadaama iyaga naftooda guryaha dowladda yihiin dowladdu way u hagaajisaa way u badisaayo qolalku way fara badan yihiin laakiinse xaqiiqada meesha taa waxay tahay dadka degan guryaha dowladda saan idiin sheegay aad iyo aad ayay u yar yihiin marka aad ka tirsan tahay ruuxa guriga dowlad ay leedahay deganow dad aad u yar fursad ka faa'iidaysanhaya wax dadkoo dhan u dhexeeya marka meeshii aad ruuxii u yar maaragtay dejin lahayd wixii xataa aad arrin ood sheeganaysa si hoos ahaan aad u sheegan lahayd inaad intaad mikrofon soo qaadato adduunka dhanba u sheegto ood maaragtay calaacasho runtay markii loo hadlo dadku waxay ku dhahayaan oo maad ka guurtid meesha maxaa kugu haya maxaase kugu qasbahaya miyaadse ogeyn inay dad kaleeto oo kaa daran oo abaal weliba ku qaba inay jiraan haddaadan rabin oodan jeclayn maad ka guurtid ood degtid maartay sababto dadka victoriaanka ah intooda badan 90% hadayna ka badnayn meel un kale ay degan yihiin barna qaarkood meel looma deganaba oo aba guri la-aanba barba weeye aad ba u yar yihiin laakiinse intooda badan guri bay ama iyagu qaateen ama ay kiraysanhayaan ama dad kaleeto ehelkoodii wax la degan yihiin marka arrintaa maxaad macnaha ma iskaga tagtid marka malihi ma laga tago ha laga tago laakiinse in la ogaado un arrinta jirtay xaqiiqada ah oo dadka kalena aan u sheegno khaasatan waajib baa saaran dadka arrintan og say ku bilaabatay in ay guryahani ay guryo aada u yar yihiin sababta inagu aanu u degnayna inay ahayd inagoo diinkeena la cararayna dartii aana u degnay ee aynan macnaheedu ahayn inaan si markii loo fiiriyo dadka ugu hooseeya inaanu nahay ma nihin soomaalida marka noo alxamdulilah dad waxaanu nahay maskax badan dad waxaanu nahay shaqeeya dad waxaanu nahay wax soo samayn kara oo maaragtay wax kale waxoodii maaragtay wax samaysan kara yaanu nahay marka waxa ugu weyn meesha aanu u joogno waxay ahayd un arrintaa keli ah ee caqabada ayna hortaagan ee xagga diinteenna ku saabsan bay ahayd marka arrintii dhammintii laiska iloobo in loo maleeyo maaragtay inay wax kala tahay waxaa iyadana arrintan isoo xusuusinaysaa arrin nin beri ii sheegay oo towraddii soomaaliya berigay jirtay socotay maxaa lihi dowladda kacaanka ayaa waxaa la dhihi jiray soomaalidu ha israacdo lagu dhihi jiray midownimada iyo soomaalida iyo markii la dhahi jiray waan garanaya aniga yaa soomaalidu ha midowda iyo soomaalidu ha israacday baa la dhihi jiray marka waxaa la yidhi nin dadka shaacireeya show ahaayoo dadka qosliye ah yaa waxaa la yidhi bas buu raacay marka baskii buu iska dhex fadhiistay markaasuu dadkii waxaa dhihi jiray conductor wax la dhaho dadka lacagta ka qaado tigidkana u gooyaa jiray ninkiiba marka markatigiisi lasoo gaara waxaa la yidhi lacagtii tigid baa la yidhi markaasuu yidhi maxaa tiri adbuurda tigidkii baska aad ku raaci lahayd laga rabo inaad qaato dee keen lacagtiisi keen markaasuu ninkii sheekada dhintu u bedelay wuxuu yiri baa maxaa tiri ma anaad weydiinaysaa baskan aan raacayo yaa tigid weydiinaysaa arbuudan haa markaas waxaa leeyahay intuu istaagay waa ninkaas ii sheegay inay jirto iyo in la iska sameynay waa suuragal laakiin sheeko aad u qiimo badan weeyaa macno weyn wadata marka waxaa leeyahay intuu istaagay oo dadkii u la hadlay ayuu wuxuu yidhi baa layidhi waryaa waxaan idin malaynayaa ninkan inuu uusan maqlin soomaalidu ha israacdadii inuusan maqlin baan u malaynhayaaye aan ugu celinna mar labaad buu yidhi baa mar labaad aan ugu celin macnaha waxaa weye macnaha asaga wuxuu u fasirtay soomaalidu ha israacdadii soomaalidu ha israacdo oo gaadhiga iyo baska iyo hawada lugayso ha isku lug darsato oo kale buu u fasirtay marka ninkan baskan aan hadda idinla raacahayo yuu doonayaa lacag inuu weydiiyo marka ha israacdadii buusan maqal baan u malaynaya muusan maqale aan ugu celinna bi mar labaad taa waxaan oga jeedaa
dadkii sababta aan guryahan u degnay iyo sababta aanu maaragtay uga faa'iidaysanaynay iyo wixii inagu qasbay dad badan baa arrintaa aan looba sheeginba oon laba soconine ana waxaan dhihi lahaa mar labaad ha loogu celiyo ha loo sheego haddii aynan saa dhicin runtii waxaanu gelaynaa waxaan noqonaynaa wax dad lagu qoslo horedin wayba bilaabatayba taasi waxba isu qarin mayno runtaan isu sheegaynaa already wayba bilaabatay arrintaasi waa lanagu qoslaa si aan marka rajo u lahaano in macnaha arrintaasi la isdaba qabanno malihii aan ka guurno ma aan lihi aan la deganaanin laakiinse ha la ogaado uun xaaladda iyo waxa lagu jiro ee arrintu waxay tahay dhegeystayaal waa 3 saac codka afka Soomaaliga xamdi axmed cali la socodin habeenka soo talaadaas 8 barka ilaa 9 iyo barka xogo yaro bareega ayaan gelinaa marka ayaa arrintadan sii wadaynaa ee dhageysi wacan dhegeystayaal waa 3 saac codka Soomaaliga xamdi axmed cali la socodsiin habeenka soo talaadaas 8 barka ilaa 9 iyo barka program ayaa iga dambeeya caawa oo waliba uu nin leeyahay hees iyo arrimahaas ku saabsan tahay nin hadda igu soo galay marka waan iska soo gabagabeynayaa arrinta midaas ay ahayd in la wadaagayay runtii waa arrin in badan rabay inaan idin la wadaago dadka la wadaago arrintan waa u baahan in isweydiino oo la socono aday dadka qaarkood waxa laga yaabaa in uu qaataan canaan ama maartay eedayn laakiinse af kale kuma aan sheegin afkeena ayaan ku sheegay inaga baa maqlayna waxaan kaloo rabaa inaan idan idin la wadaago oo xagga wararka markii loo fiiriyo waxaa runtii arrin aad wararka u haysatay xiiso lahayd nin kubadda bahasha la dhaho cricketka aad u ciyaari jiray oo meelaha aan malaynaha 40 sano ka hor oo kale miyuu aad ugu dheereeyay adduunka kuwa in la dhaafay hadda waran haye ugu horeeyay dadka ugu sarreeya ahaa oo aad loo yaqaano aad loo qadariyo ayaa runtii waxaa la qoraal uu qoray ra'iisul wasaare waqtigaa jiray uu u qoray ayaa si maartay lama filaan loo helay oo gabadh cilmi baadhid samaynaysa ay heshay waxa arrinta ku saabsan tahay ninkaasi wuxuu aad uga soo horjeeday fikrad nin asna la casilay oo Gough Whitlam la dhihi jiray oo intii arrimo siyaasad xagga baarlamaanka hor istaagay waxyaalihiisii governor generalkii waqtigaa jiray uu shaqadii ka wareejiyey laakiinse arrimo aad u qiimo badan oo runtii waxa la dhaho progressive la dhaho oo kale maaragtay samaynhayey ayuu qoraal uu kaga soo horjeeda ninkaas waraaqaba wasiirkii ra'iisul wasaarihii markii dambe shaqada qabtay ayuu u diray marka ninkani waxaa loo arki jiray hadda wixii ka horreeyey inuusan ahayn nin aan siyaasad shaqo ku lahayn inkasta oo waxaa la yidhi meelo lagu sheegay ay jirto inuu dhinaca midigta ahaa dadka xagta jira oo kale inuu yar ahaa fikradaha noocaasa aaminsanaa haddana se inuu siyaasadiisu ilaa xadda ay geersan tahay waxa uu ku booriyey ninkii ra'iisul wasaaraha markaasi in waxyaale aad u fara badan oo ninka Gough Whitlam uu hirgeliyey in uu dib uga noqdo waxaa ka mid ah waxyaalihii lagu yaqaanay xuquuqda haweenka aad oo kale wuxuu waxbarashada oo kale haweenku inay maaragtay waxbarashada loo sahlo waxaa ka mid ahayd maaragtay ninkii uu sameeyey buu ahaa bahashan la iyadana Medicare-ka dadkoo dhan arrinteeda aan ka hadlayay dad badan waxay moodayaan arrinta weligeed inay iska jiri jirtay ma ayna jiri jirin ku saabsan caafimaadka iyo maaragtay dadka ruux kasta oo Australian ah in uusan u baahnayn lacag inuu haysto si dhakhtar ugu tago daawadana markaa si raqiis u gadan karo taa kale waa dambayso daawada gadasheedu way dambaysay laakiin inuu dhakhtar kasta uu u tagi karo
uusan u baahnayn lacag inuu bixiyo ninka waxyaala aad u fara badan oo maaragtay horumar aha ayuu ninkaas sameeyey Gough Whitlam markaasuu ninkan wuxuu ku booriyey in macnaha uu ninkaasi maaragtay